asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibada qiimaha badan ku xiran janaalkan soo dhowaada muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa musalsalka walaalaha xalqadiisa 18aad goosgooska labaad oo xaleeto lala baahiyey. haddaba intaana muuqaalka gudagelin fadlan daawada muuqaalka laag noo saar waa mahadsantaintaa ka bacdi kusoo dhawow. haddaba goosgooskan ayaa ah mid aad iyo aad u xiiso badan. haddaba bilowga hore oo goosgooska ayaa waxa aan ku arkaynaa dabcan asiye oo la hadlaysa cumar iyo suuze. sidoo kale isla goosgooska dhexdiisa waxaan arkaynaa uljaan oo ku leh harika, yacni magaca harika asal ahaan waa erey macno u taagan, waxaana loo wadaa yacni raa'ic ah af carabi ahaan haddii aan eegno ama wanaagsanteydii oo kale waaye ereyga harika. saa marka wanaagsanteydii ayuu dhahayaa, waxaan ku jirnaa qarnigii 8aad. haddaba iyadana yacni shumis yar iyadoo ka fog ay shuminaysaa, yacni uma dhowo. haddaba ay bikee qof u eg aan u malaynaya hadalkeeda ayaa hadlayso, waxa ay dhahaysaa yacni su-aasha ugu badan ee maskaxdeeda aan isweydiiye ayaa waxa ay tahay, ma laga yaabaa xafladan in ay dhammaato ayagoon qof isdagaalin. haddaba xafladaas ma sheegi karay dadka lasugu yeeray sababta xafladaasi loo dhigay, laakiin qof aan u badinaya abike in ay tahay ayaa waxa ay dhahaysaa su-aasha ugu badan ee maskaxdeeda ka dhex guxaysa isla weydiinaya waxay tahay, xafladan ma laga yaabaa in aan ka tagno ayadoosan qof isdagaalin. haddaba muuqaalka xig waxaan arkaynaa Jamiile oo mobile hadlayso, waxayna la hadlaysay Tolga ayay ku dhahaysaa, aniga waxaan ka tagayaa Istanbul, waxaana maanta ka tagayaa Istanbul. Tolga oo xilligaasi gaari saaraa ayaa runtii aad u qaylinaya asagoo ka careysan arrinkaasi ku dhacay. haddaba Tolga oo leh Allah kaarisiya ama allacna ama shit oo kale af Soomaali ahaan, yacni ereyo badan waxaa jira Turkiya caadi iyo luqadaha kale Ingiriiska, af Soomaali ahaan marka loo eego aan waxba tirin, yacni Allah kaarisiya haddaan macnayno waxa ay tahay asalkeedu shit ama waxaad ka xumaatay. haddaba Tolga oo isagu soo ordaya oo leh ku soo ordaya waxa uu imanaya ugu horeyntii xafladda markuu imaado ka bacdi Cumar ayuu dhahayaa ugu horeyntii Tolga ereygiisa ugu horeeya waxay tahay in uu jamciyo uu dhaho dhammaantiina waan idin wada dilayaa ama halkaan ayaa idinku dilayaa. markaas ka bacdi Tolgaas u soo ordaya Cumar ayuu feer ku dhufan doonaa. marka uu ku dhufta ka bacdi waxaa dhacaysa in uu dhaho Jamiile yacni waxa u tagtay adi dartaada ayay iga tagtay maanta, ma maqashaa wariyaa Jamiile adiga dartaa ayay iga tagtay. markaas ka bacdi Cumar waad garanaysiin waa ku soo ordaayo oo isla markiiba feeraya isaguna ninkan kale ee lagu magacaabo Tolga. haddaba markaas ka bacdi marka uu Cumar Tolga feero muuqaalkana laga boosinayo waxaa la tusaya muuqaalka xigana ugu horeyntii waa inta ugu baahan si fiican loo faaleeyo. ninkii Tolga ayaana la tusayaa, waxa uuna dhahayaa hadda waa xilligeygii ama yacni waa xilligeygii ama ciyaartu waa markayga ama waa markii aan wax samayn lahaa. yacni haddii Cumar hore wax u soo sameeyey anigana waa markaa wax samayn lahaa. markaas ka bacdi Tolga markuu dhaho waa xilligeygii waxa uu gubayaa dabcan ninka gurigii halkaas ahaa ku yaalay ee Asiya ku jirtay. gurigaas uu gubay Tolga waxaa ku jirtay Asiya isla xafladda dhexdeeda ayay ahayd, isla markaana qof ayaa isku dhex tuuraya, laakiin ma sheegi karin runtii qofkaasi qof uu yahay. haddaba haddii aan idin faahsiiyo gurigaasi yacni lama hubo in uu Tolga gubay, laakiin shaki uu ugu weynaya waxay tahay maadaamuu dhahay hadda waa xilligeygii ama waa xilliga aan wax samayn lahaa. saas ayaa looga shakiyey in uu Tolga gubay gurigaasi. haddaba ma laga yaabaa Asiya in ay ku soo gaadho dhaawac gurigaasi dhexdiisa. haddaba maxay tahay sababta aan u arki weyna goosgooskan Doruk iyo arrimihiisaba? saan wada ogeyn goosgooskii kan ka horreeyey waxuu ahaa goosgoos ka xiisa badan kan, kadib markii uu Doruk dhahay yacni fideogan kaanow aniga oon daawan lagama yaabo in aan qolkan ka baxo. haddaba tan isweydiinta mudan ayaa waxay tahay fideogaasi goormuu daawan doonaa ninka lagu magacaabo Doruk. sadaalinta ugu waaweyn ayaa waxa ay tahay in dabcan fideogaasi ama intaas uu Doruk lahaa fideogan aniga oon daawan gurigan lagama yaabo inaan ka baxo in ay tahay xalqadda soo socota ee 38aad dhammaadkeeda oo keliya. sidaas daraaddeeda ayaa goosgooska koowaad looga dhigay, yacni goosgooska labaadna in bartamaha dhacaysay ama laga yaaba inay dhammaad ka dhacdo looga dhigay. haddaba bal idinka haddii aan idin weydiiyo kee xiisa badan xalqadda soo socota in ay nagaga dhammaato Asiye oo dabcan gurigaasi ku gubanaya iyadoo la badbaadin, ama Doruk oo leh
fiidiyogan aniga oon daawo guriga kaba bixin labadaas mid ka rabtiin inay xalqad soo socoto ku dhammaato ama mid ka rabtiin in aad faahfaahin dhammaystiran aad ka heshiin xalqadda 38aad bal fikirkaaga nagula wadaag dhanka commentiga. haddaba tan isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay fiidiyogaas marka uu Dooruug arkama haddii uu lacala arkay Dooruug aabihiisa muxuu ku samayn doonaa ma laga yaabaa inuu iska dhaadhiciyo wax aan jirin. haddaba ninka lagu magacaabo Tolga asagana ma laga yaabaa in la geeyo xabsiga sida loo badinayo waxaa loo badinayaa ninkaas in xabsiga la geyn doono waxoogaa yar maalmana uu xidhnaan doono. haddaba tan kale ayaa waxa ay tahay Jamiile marun baa hadda magaalada misaas ay kaga tagtay marba haddii ay Jamiile magaalada ay ka tagtana waxaa la socotay inay taxanaha ka yar bixi doonto ama maalmo ay ka maqnaan doonto. ma sheegi karin marka loo sheego Tolga inuu xabsiga joogay in ay soo laaban doonto kaliya waa saadaalin oo kaliya waxaa loo badinayaa ninka Tolga lagu magacaabo marka xabsiga la geeyo in ay soo laaban doonto qoftan lagu magacaabo Jamiile. haddaba waxa isweydiin mudan se la ogaan doonaa in uu ninkan Tolga lagu magacaabo uu guriga ay Aasiya ku jirto gubay. haddaba meesha ay joogeen waa xaflad waxaana laga yaabaa in ay CC camera meel walba ku xidhan tahay sidaas daraadeeda Tolga saa lagu soo qaban doono. Jamiilena waa sababta kaliya uga joogsan doonto Istanbul ama ay uga tagayso yacni hadda Istanbul ay ka tagaysay meel kale ay ku socotay marka waa sababta kaliya ay kaga joogsan karto in Tolga la xidho. dabcan waa laga yaabaa in ay sidaas daraadeed loo xidho. haddaba waxaa sidoo kale isweydiin mudan ma laga yaabaa qoftan Jamiile lagu magacaabo in ay aaminto Tolga iyo arrinkaas sameeyay Tolga ayaa gubay gabadha lagu magacaabo Aasiya ama qolku gubay. sidoo kale Cumar maxaa ka suurtoobi doonay idinku iska garanaysiin mar haddii uu ogaado arrinkaasi ku dhacday walaashiisa in uu sameeyay ninkan lagu magacaabo Tolga. haddaba kulley xalqadu waa mid soo dhow runtii haddana sidoo hore waa la dhaamaa kaalinta saddexaad ee filimka afraad ee meelahaas waaye ilaa santa oo horeysa ayuu taxanaha ku soo laabtay sidoo horena waa u dhaamaa dhowrka kaalmada hore ayuu ku soo laabtay dhankaas iyo daawashada oo kaliya waaye waa taxanaha hadda kaalinta uu kaga jiro dalka Turkiga bal xalqad soo socota kulley xiisa ay leedahay waxaan rajaynaynaa in ay daawashadu sidan dhaanto ama dhanka ratingka uu kor u kaco. haddaba muuqaalka xiga insha Allah waa sida aan rajaynayo waxaan uga soo hadli doonaa musalsalka dhaawacii qalbiga xalqadiisa dabcan soo socota goosgooskeeda koobaad inkastoo aan sugayo goosgooska labaad inta soo baxayo oo caawa marka haddii uu soo bixi waayo bal goosgooska koobaad oo kaliya iyo akhbaarta ugu muhiimsan ayaan ka soo qaadanaynaa. la soco muuqaalada xiga si aad ula socotid gamalalka furo subscribe channel saaro sidoo kale muuqaalka like noo saar. waa maasanta intaa ka bacdi daawade waa anigoo saaxiibkiina Khalid عمر بالقرب تاعنا وحنا ذيك قتها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.